نقدر ونكسر مدة الصومال من بيجوغان مدة إسلام كمل بيجوغان وحاولت لقلنا هدي أنا إمام الكسفار ورسمت مدة إسلام كبيش بركيسنا رمضان كوصل قراني بوفيه أو يعني أودي كن إيت كمديهين خضرة فروتس على عرشة في عن وشاري دجاج أنت نوع البورة أو مينيو ما أنا بالكيسية كيبرة مش شفت لما الجوجاني ديت كيسلام كابيني نقول صغير هذا الواحد مقايد من سفاري عام كتها بس كيلك وكسر بوري ماشي هراء مركا وحلينا وضد الولي إنه ماشي هراء كلام سفاري كيف كتها marka warxinka wal maleeyay dadka meesha soo guurtay xilliga soo guurtay iyo waxyaabaha ka bedeshay hadda raashinkoodii sax waxaan ka soo guurnay horta 1424 waxa waaye saddex albaab dhinaca gudaha inaga xigtaa waxa meeshaas degnayn muddo 10 sano camal ah halkan aan soo guurnay oo adresskoodu yahay 1410 oo ayadana meel ka weyn ah ka baaxad weyn taasoo noo suurtagelinaysa in dad badan fariisino martina ku soo qol gooni ah dadka ay ku yeeshaan fadhiyada gooniga ah iyo hadii ay jiraan waxyaalo cusub waxaan maqalnay inaad ku soo kordhisay cunto cusub sax marka maxaa ka mid ah cuntada cusub ee soo kordhisay menu cusub waxaa ka mid ah cuntooyin badan oo ah regionka Africa sida plantain oo ah muskatini waxaan kaloo sameynaa cuntooyin badan oo Soomaalida ah dhaqankooda ah waxaan ku darnay menu cuntooyin badan oo seafood shrimps-ka iyo tilapia fish yiraahdo waxaan kaloo ku dareynaa waxaan leenahay cafe full ah oo espresso bar ah waxaan kaloo leenahay quraac menu oo baaxsan menu sida laga heli doono canjeero iyo beer iyo suqaar iyo pancake iyo America yani cuntooyinka kale laga cuno hadda waxaa laga yaabaa kibadaanka uu sii socdaa toddobaadkii ugu dambeeyay labada ugu jirtay waxaan doonaynaa maalmaheena caadiga marka dadweynaha ku daawanaya gaar ahaan dadka ka sameeyay maxaad faraysaa oo cusub oo ku soo kordhisay iyo waqtiyada aad furanta waxaan furaynaa bisha laga baxo maalinta ciidda ah waxaan furi doonaa laga bilaabo oo muqaadila noqdo quraac sida weekend aan ku dari doonaa extended hours sida Saturday iyo Friday dadka habeenkii shaqada soo dhaxo ka sii ugu faa'iideystaan waxaan ku dareynaa quraac menu-ga sameynaa qadada xilliga qadada maalmaha waxaan sameyn doonaa diilada buffet xataa dadka sida xafiisyada aadaya kale uga faa'iideystaan iyo dadka shaqada ku degdega ay u yimaadaan cunto degdeg ah iyo qolintooda adigoo community iyo sida gobolka nidaam mujtamaciina aad u muuqdo marka waxaa loo baahday maqaayad matali karta waddankeena sidaas caadigeed ayaan والله صح واي يعني كلو اسكو يعني inaan cuntada Soomaalida yani leeyahay fiido kala oo aan ku sameeyay sida maadaama trendka maanta jira iyo waxyaalaha badan dadka carrana kamid ah beeringa sportka raayd sidaas naadiga ayaa waxaa isku daya cuntooyin badan oo caafimaad leh waxaan jirta maqaayadaada habka u samaysan tahay hab aad u fiican waa marka habkaasi yaa kugu fikradaas xageed ka keenay niyo waxay ahayd quest raadina aad u raadinay salaam waxaan soo bandhigo sidaas waxay iga caawiyay arrintaas dad badan designer ah maadaama badan هذه بطن